Ma doonaysaa inaad wax jeclaato misene ma doonaysaa inaad ku guulaysato qofkaad adigu jeclaatay? Haddaba waxaan kuu soo gudbinayaa 10 tallaabo oo kuu sahlaya inaad wax jeclaato kuna guulaysato. Isla 10 tallaabood waxaad ku ogaan kartaa qofka ku jecel iyo kan aan ku jeclayn. Daawasho wacan. Qodobka koowaad, ugu horreyn waa inaan fahanaa waxa aan ka hadlayno. Waa maxay jecel? Siyaabo kala duwan ayay ku qeexaan culummada daraasayso jacaylka. Waxaan ka soo qaadanaynaa qayb yar oo la fahmi karo. 1. Jacaylku waa waxa ugu quruxda badan ee la haysto, waxa ugu adag ee la kasbado, iyo waxa ugu xanuunka badan ee la waayo. Marka la hadal qaado jacaylka dhex mara rag iyo dumar. 2. Xushmad la'aan jacaylku waa lumaa. Daryeel la'aan jacaylku waa caajis. Daacad la'aan jacaylku farxad ma leh. Aaminaad la'aan jacaylku waa mid aan deganayn. 3. Goortii aad tiraahdo waan ku jeclahay, waxaad ballan ku samaynaysaa qof kale qalbigiisa. Waa in aad ku muujisaa ficil si aad u caddayso. Jacaylku ma ahan khiro keliya. Jacaylku ma ahan ficil keliya. Jacaylku ma ahan daryeel keliya. Jacaylku waa dareen. 4. Qofka si dhabta kuu jecel wuxuu kaa horseedaa inaad dembi samayso. Qofka aan si rasmi ah kuu jeclayn wuxuu kugu dhiirigeliyaa xumaan iyo dembi inaad samayso. 5. Dadka badanaa oo aragtida wejiga keliya wax ku jeclaada, gadaal bay ka qoomameeyaan. Sababtoo ah jacaylku marnaba kama dhasho quruxda wejiga, balse waxa uu ka dhashaa quruxda qalbiga. 6. Intaadan qofka jeclaan, marka hore fiiri inuu naftiisa jecel yahay. Haddii uusan naftiisa jeclayn, adiga kuma siin karo jacayl qofka asaga ah. 7. Goortii qof uu ku jecel yahay, ma ahan had iyo jeer inay afka ka sheegaan. Waxaad mar kasta ka garan kartaa habka ay kula dhaqmayaan adiga. 8. Haddii aad qof isjeclaateen kaa tagay, ha murugoon, hama tagin, ha isgubin, heeso badan leh ha isku maaweelin. Fiiri naftaada in aad nooshahay oo neefsanayso, kadibna horay u wado noloshaada. U sheeg qalbigaaga in qof kaa tegay aysan ruuxda kaa tegin adiga. 9. Ha u beddelin midabkaaga iyo naftaada si dadka kuu jeclaadaan. Ahaw qofkaad tahay, dadka saxda ah ayaa kugu jeclaanayo sida. 10. Dadka si dhabta ah isku jecel si sahlan kuma kala haraan. Haddii ay jirto 100 sababood oo ay ku kala tegi karaan, waxay heli karaan 1 sababood oo ay ku wada noolaan karaan. Waxaan filayaa inaad wax ka faa'iiday muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiiso leh aan soo gelino barteena. Wixii macluumaad ah nala soo xiriir ciwaanka kor ku xusan.